booliska Jarmanka oo ka hortagay isku day afgambi oo ka dhan ah dowladda. Booliska Jarmanka ayaa shalayto waxa ay fuliyeen howlgallo ka dhacay dalka oo dhan iyagoo xiray 25 qof oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin unug argagixiso oo midigta fog ah, kaasi oo qorsheynaya inay afgambiyaan dowladda isla markaana weeraraan baarlamaanka. Ilaa iyo 3,000 oo saraakiil ay ku jiraan cutubiyada xulka ah ee ka hortagay argagixisada ayaa ka qayb qaatay howlgalka oo dhacay aroortii shalayto laguna baaray in ka badan 130 guri. Warbaahinta Jarmalka ayaa ugu yeertay howlgalkaasi midka ugu weynaa ee ka dhaca dalka gudihiisa oo ay qaadaan booliiska waddankaasi. Howlgallada ayaa lagu beegsaday dad la tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin dhaqdhaqaaqa Reichsbürg oo la tuhunsan yahay inay sameeyaan diyaargalow xooggan oo ay si rabshad leh uga gali lahaayeen baarlamaanka Jarmalka iyagoo koox yar ah oo hubeysan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dacwad oogayaasha. Kuwa la xiray ayaa lagu eedeeyay inay asaaseen kooxdani bisha November 2021, taasi oo dejisay hadaf ah in la afgambiyo nidaamka dowladeed ee ka jira Jarmalka kuna beddesho mid nooca ay rabto ah. Labo ka mid ah 25 qof ayaa lagu xiray dalalka Austria iyo Talyaaniga. Dacwad oogayaasha magaalada Karlsruhe ayaa sheegay inay aqoonsadeen 27 qof oo dheeri ah oo la tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin ama ay taageeraan shabakadan argagixiso. Dhaqdhaqaaqa Reichsbürg ayaa waxaa ku jira dad taageera Naaziyiinta, kuwa hubka aad u jecel iyo shirqoolayaal diidan ee sharci ahaanshaha Jamhuuriyadda Jarmalka. Iyadoo muddo la isaga indhitirayay inaysan sidaas muhiim u ahayn, ayaa dhaqdhaqaaqa Reichsbürg wuxuu sanadihii dhawaa noqday xag jir, waxaana loo arkaa halis amni oo sii kordhaysa. Dacwad oogayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay askar hore oo ka tirsanaa ciidamada booliska ay ka mid yihiin xubnaha kooxdani.